kulanti wanaagsan daawadayaal halkan waa telefishinka caalamiga ee deegaan channel TV aad ka dhageysataan bartaanu ku leenahay YouTube-ka iyo aaladaha social media daawadayaal maanta oo ay taariikhdu tahay 24 bishii 6 2018 barnaamijkeena faaqidaada wargeyska waxaynu ku soo qaadan doonaa doorasho taariikhi oo ka dhacaysa wadanka Turkiga doorashadani oo laga soo hormariyay xilligeedii ayaa waxa la doonayaa inay go'aamiso mustaqbalka iyo aayaha dambe ee wadanka Turkiga oo baryahanba dhaqaalihiisu hoos u sii ciirayay waxaana maanta baarlamaanka iyo loogu tartamaya doorasho ka duwan doorashooyinkii hore oo la doonayo inuu madaxweynuhu awoodda kula wareego baarlamaankana laga saaro meesha iyo ra'iisul wasaaraha waxaana maanta 15 sanadood kadib ay doorashada Turkiga u muuqataa in aad la isugu dhow yahay oo mucaarad isbahaystay oo xoogii uu ka soo horjeedo madaxweyne Recep Tayyip Ordogan oo aad looga taageero caalamka islaamka iyo wadanka Turkiga gudihiisa waxaana doorashadan maanta u dareeray 4 milyan oo qof ayaa la doonayaa inay codkooda dhiibtaan waxaana loo badinayaa in mar labaad rogaal ku celisa la galo oo ay noqoto doorasho la isku mari waayo oo ay labada musharax si gaar ah isugu soo haraan ugu dambeyntaas waxa la rajaynayaa la leeyahay inuu Ordogan ku soo baxo codaan sidii hore u ahayn ama aan u badnayn sidii hore tan iyo inqilaabkii ka dhacay wadankaasi sanadkii hore horaantiisii ayaa waxa la sheegayaa inuu Turkigu isbedel dhaba sameeyay oo madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ku hogaamiyay Turkiga inuu ka bedelo nidaamkii baarlamaaniga ahaa walow hore ugu soo hogaamiyay inuu dhaqaalaha wadanka iyo uu kor ugu qaado iyo nolosha dadweynaha waxaana malaayiin Turkiyihi ay aad ugu kalsoon yihiin Erdogan inuu xukunka sii hayo walow uu ku raagayo waqti dheer uu imika xukunka hayay waxaana la sheegayaa inay tijaabadani tahay tijaabadii ugu dambeysay ee lagu cadayn doono dadkii oran jiray uu sixran yahay Turkigu ninkan iyo in ay noqoto mid mucaaradku ay guulo la taaban karo ka soo hooyaan sida loo yeeray mucaaradka waxa dabada ka riixaya baa la leeyahay wadamada reer galbeedka oo dhaqaale badan ku bixinaya si ay ula tartamaan ama isugu muujiyaan inay saameyn ku leeyihiin siyaasadda wadankaasi waxaana mucaaradku intiisa badani ay doonayaan inay soo celiyaan saameyntii iyo xiriirkii wanaagsan ee Turkiga kala dhaxayn jiray wadamada reer galbeedka halka Erdogan uu doonayo inuu sameeyo quwad cusub oo u dhiganta dawladii Cismaaniyiinta haddaba warbixin cusub oo maanta BBC-du ka diyaarisay ayaynu bal ku eegaynaa waa lacaynka ay wax uga dhacayaan iyo doorashadu sida ay tahay waxaana warbixintaasi u dhacday sidan dhageysi haboon dowladda xisbiga talada haya ee AK ayaa sidoo kale lumin karta aqlabiyadda ay baarlamaanka ku leeyihiin waa doorashadii ugu horeysay ee dalka Turkiga ka dhacday tan iyo intii dalkaasi uu ka dhacay gobigay dhicisoobay wararkii ugu dambeeyay ay BBC-da ka qortay waxaynu hayaa Ahmed Abdinuur marnaba taariikhda casriga wadanka Turkiga sidaan oo kale doorasho uguma kala qaybsamin Recep Tayyip Erdogan weligii dagaal doorasho oo sidaan u adag lama aanu kulmin hogaamiyihii taariikhda wadanka Turkiga ugu awoodda badnaa wixii ka dambeeyay aabihii aasaasay Turkiga ee Atatürk waxa uu noqon lahaa mid weli ka awood badan haddii uu doorashadan ku guuleysto isagoo baabi'inaya jagada ra'iisul wasaaraha awoodda baarlamaankana ka dhigaya mid daciif ah laakiin haddii uu gaari waayo 50% codadka doorashada madaxweynaha waxa uu wajahayaa wareeg labaad in uu la galo oo ay isku noqdaan isaga iyo Muharram Ince oo ah musharax xoog leh ee siyaasadda bidix dhexe oo isagu ololaha doorashada ka dhigay mid aad u kulul codbixinta baarlamaankana mucaarad midaysan ayaa rajeynaya inay Mr. Erdogan kala wareegaan aqlabiyadda baarlamaanka madaxweyne Erdogan waxa uu haatan isu haystaa inuu yahay nin ay taageerayaashiisu aad u jecel yihiin mucaaradkiisuna aad u neceb saakadii hore ayuu ku kalahay goob laga codeynayay hayırlı olsun vatanımıza milletimize inşallah en iyisi waxaan rajaynaynaa in doorashadani ay noqoto mid u wanaagsan wadankeena waxa kaloo aan rajaynaynaa in qofka ugu wanaagsan ee loolanka ku jira uu ku guuleysan doono waxa la yaab ah in dadka ay sidan ugu soo baxaan doorashada beni çok şaşırttı. Demek ki çok büyük bir ilgi var. codbixiyahan oo jooga magaalada koonfur bari Turkiga halka warka kala socotaan daawadayaal waa telefishinka caalamiga ee deegaan channel TV wixii warar ka soo kordhana waxaan idinku soo dayn doonaa barnaamijyada